ururka himilo oo ka shaqeeya arrimaha bulshada iyo wax ka qabashada baahiyaha ka jira deegaanada miyiga ayaa deeq agab kombiyuutarro iyo kuraasa ku wareejiyay maamulaha dugsiga Shansha Cade iyo odayaasha deegaankaasi waxaana sidoo kale ururkaasi uu dibahabayn ku sameeyay dugsiga maxadka diiniga ah ee deegaankaasi iyagoo sidoo kale ururka himilo qalabka tamarta cadceedda lagaga dhaliyo ee loo yaqaan solar systemka ku xidhay xanaanada iyo dugsiga deegaankaasi Shansha Cade waxaana laga hortagi karaa dhibaatooyinkaasi samaynta xarumaha barbaarinta dhallaanka iyo goobaha xarayska ee lagu barto quraanka kariimka iyo culumta shareecada haddaba waxaa ka mid ah goobahaasi macadka xifdinta quraanka kariimka ee deegaanka Shansha Cade ee gobolka Togdheer waxay ummadi ku hamidaa dhigeeda ay ku dhaaftaa barashada quraanka iyo noocyada cilmiga shareecada haddaba qof kasta oo muslima waxa waajib ku ah barashada quraanka kariimka iyo culumta shareecada islaamka sida ay tilmaamayso nusuusta sharcigu sidaas oo ay tahay waxa sanooyinkeena dhaafay saameyn xoog la ku yeeshay guud ahaan daayirta soo koraysa ee caalamka islaamka aaladaha ku shaqeeya tiknoolajiyada casriga ay inteeda badan farsameeyeen wadamada reer galbeedka iyo Shiinuhu kuwaasi oo leh dhibaatooyin maskaxeed jireed iyo isbedel dhaqan isla markaana leh faa'iidooyin u baahan in si feejigan loo marafacaadsado. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Magacaygu waa Nisba Ali Aadan waxaana joogaa ama tiimleaderka xanaanada Shansha Cade anigoo doonaya inaan warbixin yar oo kooban inaan xanaanada ka siiyo xanaanadu waxay ka kooban tahay 5 qaybood OBD under 5 iyo OBD over 5 ANC iyo BNC delivery iyo pharmacy marka inta laga eego shaqaalaha ka howlgala ama shaqaalaha jooga Shansha Cade waa 5 qualified iyo auxiliary nursing inana la 5 qualified waa 3 nursing iyo 2 midwife sidoo kale waxa ka howlgala washman iyo cleaner sidoo kale waxa ka howlgala dad kale oo iyaguna 2 qof oo wacyigelin oo WFP uu wacyigeliya dadka iyo 2 qof waxa loo yaqaan TBA dadka umulisa dhaqameedka 2 dumar ah sida runtii aad iyo aad xanaanadu u shaqeysaa habeen iyo maalinba waxaan nahay dad heegan ugu jira horumarinta iyo kor u qaadida xanaanada Shansha Cade wuxuu hoos yimaadaama uu hoos xukuma marka target population loo eegayo ama ka jireeriyada wuxuu xukumaa heere oo heltiboosa Maxamed Ugaas oo heltiboosa Shaafid oo heltiboosa iyo balcalan oo heltiboosa xaflad ballaaran oo ujeedadeedu ahayd xarika jarista qaybta hore ee dhismaha macadka deegaanka Shansha Cade iyo dhagax dhiga dhismaha masjidka macadkaasi uu yeelan doono ayaa ka dhacday dhismaha cusub ee macadka deegaanka Shansha Cade waanu ka gudoonay waanu la wareegnay waxaan ugu ducaynaynaa waxa weeye hooyadii uu waqfay waxaan ugu ducaynaynaa in waxa weeye Ilaahay subhanahu wa ta'ala xalima cismaan in Ilaahay waxa weeye ajarkeeda iyadoo qabrigeeda ku jira Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa weeye uu siiyo